naga soo gaaraya gobolka Jubbada Hoose ayaa ku waramaya in maanta xaalad kacsanaan ah laga dareemayo magaalada Kismaayo ee xarunta gobolkaasi. xiisadan ayaa timid kadib markii ciidamo u badan kuwa booliis ah oo ka amar qaata Axmed Madoobe ay la wareegeen guud ahaan amniga magaaladaasi. ciidamada ayaa isku fidiyay qaybo badan oo kamid ah magaalo xeebeedka Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland. sidoo kale arrintan ayaa qalqal amni ku abuurtay musharaxiinta ku sugan gudaha Kismaayo kuwaas oo la sheegay in qaarkood ay isaga tageen halkaasi. doorashada Jubbaland ayaa la filayaa in la qabto bisha soo socotay Agoosto iyadoo wali xiisado siyaasadeed ay ka taagan yihiin deegaanada maamulkaasi. inta badan musharaxiinta ayaanan isdiiwaan gelin iyadoo uu dhamaaday waqtigii lagu daray. musharaxiinta ayaana cabasho ka muujinaya guddiga doorashooyinka oo ay ku eedeeyeen inuu si gaar ah ula shaqeynayo madaxweyne Axmed Madoobe. lama oga sida ay wax noqon doonaan balse waxaa guud ahaan isha lagu hayaa doorashada Jubbaland iyo hogaamiyaha ku soo bixi doono.